waxaan rabaa ugu horreyn inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaad ila soo dhaweysaan walaalkay Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo aan hubo aqoonta kartida iyo aragnimada uu leeyahay in xilka culus ee madaxweynuhu gartay ra'iisul wasaaruhu gartay golaha wasiirada ee xubinta firfircoon ka ahaana ay ku bogaadiyeen in uu ka soo bixi doono qaban doono Ilaahay idinkiisa anu imaka muddo 10 bilood baan si dhow ula shaqeeyay injineer Yariisow waxaan hubaa kuna kalsoonahay waa nin shaqo badan waqtiyada qaar labada habeenimo yani marka ama 8 nimba si qof sida uu yaqaan oo maaragtay marka saqbarka laga soo galbado ayuu mararka qaar email ii soo diraa shaqo ku saabsan waa niman daalin commitment kule yani shirarka iyo shaqooyinka hawshii loo dirana aad ka seexanayso marka waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu gartay in loo baahan yahay in dhiig cusub lagu shubo dardargelin lagu sameeyo hawsha ballaaran ee u taal gobolka Banaadir magaalada Muqdisho oo ah hooyadii ummadda Soomaaliyeed caasimadii dalka xilka waa inaynu dhamaanteen la garab istaagnaa garabkaanu taaganahay gudoomiye waanu kula shaqeynaa Ilaahay idinkiisa xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweynuhuna waa kula shaqeynayaan gacan buuxdana waa ku siin doonaa